السلام عليكم داوديال soo dhawaada waxaa idin la hadlaysa waa Jamil Ismaaciil ku soo dhawaada Accent Som waxaan rabaa inaan wixii toddobaadkii soo kordhay idin la socodsiiyo hadda ka bacdi hadii alla idmo ogeysiisaan rabaa inaan sheego hadda ka bacdi hadii alla idmo khamiista ayaan soo deyn doonaa wax isku soo aruurin doonaa warka wixii aan isleeyahay dadka way anfacayaan ama way xiiseynayaan khamiistan soo aruurina insha Allah khamiis walbo haddoosan malakamooda helin ama qadaraysan igu dhicin ama aysan wax kala dhicin insha Allah khamiis walbo Accent Som muxuu ahayd warka nuxurkiisa idinku isugu kin soo aruurina hadii alla idmo markay wax soo kordhaana live aan soo noqonaa oo Facebook live oo idin soo sheega xilli hebel wax hebla soo kordhay idin leeyahay markaas ka bacdi muxuu ahayd halkaas su'aalaha iga soo weydiin kartaan marka intaas haddaan taas uga gudbo maalinkii hore waa taa idin sheegay markii la wareysanayo Comey wixii lagu celceliyay ayaa waxay ahayd muxuu ahayd inuu sheego kelimada ah ninkaani cadaaladda ma hor istaagay kelimada la dhaho obstruction of justice cadaaladda ma hor istaagay markii hadalka wuxuu yiri jawaabtaas waxa bixin kara ninka la dhaho Mueller bixin karo muxuu ahayd baaraha gaarka ah oo loo xil saaray arrintan ayaa sheegi karo shalayto Washington Post-ga jaraa'idka weyn oo Washington Post-ga la dhaho ayaa wuxuu soo saaray in ninka muxuu ahayd baaraha gaarka oo madaxweynaha baarayo Robert Mueller uu madaxweynaha uu ka baarayo inuu cadaaladda hor istaagay in kaleeto taas oo ah wax aad u weyn obstruction of justice inuu nin muxuu ahayd uu soo farageliyo cadaaladda inuu hor istaagay baaritaankii socday midaasoo dambi ah wadanka muxuu ahayd taas ayuu hadda baarooyaa ninka la dhaho Robert Mueller madaxweynuhuna ka baarooyaa wuxuu wareysan doonaa 3 nin oo ka tirsan intelligence community-ga kuwa muxuu ahayd sirdoonka nin la dhaho Daniel Coates waxa waa National Intelligence Director-kiisa waaye mid waxa waaye Mike Rogers wuxuu ka tirsan yahay NSA-da muxuu takuwi la dhahay dadka telefoonada ka dhageystaan iyo Richard Legend asagana waxa waaye ku xigeenka Mike Rogers waaye laakiin waa uu tagay ninkaasi uu isxasilay uu baxay saddexdaas nin toddobaadkaana la wareysanayaa saddexda nin marka muxuu ahayd looma soo saarin maxkamad kumaysan xukumin in lagu reysto oo waxa waaye dooqooda ah oo ayaga liirmalin weydiin kara su'aalo oo subpoenaed ama waraaq maxkamad ay soo sameysay iyo in lagu khasbay iyo midna ma ahan saddexdoodaba waa saddexda muxuu ahayd qolyaha sirdoonka ka tirsan yihiin intelligence community-ga waaye saddexdoodaba waa la wareysanayaa waxaana laga wareysanayaa inuu madaxweynuhu hor istaagay cadaaladin kale taas waa mid la filooyo waxa laga wareysanayo inay taas tahay laakiin se lama hubo 100% wax la hubo ma ahan laakiin waa la wareysanayaa ayaa la yiri saddexdaas nin wixii laga wareysanayo waxa ka soo bixi doona lama oga mid kale ayadana soo korortay waxa waaye madaxweyne ku xigeenku wuxuu qabsaday lawyer culaysa soo fuulay madaxweynuhu awalba uu lahaa lawyer oo muxuu ahayd aan ahayn kuwa White House-ka joogo u dooda dawladda oo asaga u gaara Mike Pence ninka muxuu ahayd governorka Indiana ahaan jiray oo madaxweyne ku xigeenka u ah Donald Trump asagana wuxuu qabsaday muxuu ahayd lawyerka asagu ma awoodo inuu lawyerada noocaas bixiyo qaali weey lacagtooda waxa la dhahayay muxuu ahayd lacag siyaasadeed loo aruurin doonaa taas ayuu isaga bixin doonaa midaas ayadana waa mid kale marka culaysa soo fuulay oo muxuu ahayd dabkii ayaa ku soo dhawaaday oo nimanku kuleyl ayay dareemeen midna madaxweynihii waaye inuu cadaaladda hor istaagaa laga baarooyaa midna waxa wuxuu qaatay lawyer ayuu hire gareystay midda saddexaad ayadana waxa waaye Jared Kushner midka muxuu ahayd wiilka gabadha madaxweynaha qaba Ivanka Trump asagana qaybihiisa dhaqaale Robert Mueller uu baarooyaa asagana baaritaana ku socdo marka saddex shay waa madaxweynaha
madaxweyne ku-xigeenka iyo muxuu ahayto wiilka sadoga loo yahay saddexdoodaba baaritaana ku muxuu ahayto ayay arrintu haysataa Mike Pence ama madaxweyne ku-xigeenka baaritaan miyaa ku socda miyaa ma asaga ma la baari doonaa ma la fiirin doonaa lama oga ilaa hadda weli ma soo bixin laakiin muxuu ahayto intay goor tahay ayuu isa sii ilaalinayaa intaan loo imaanin madaxweynaha laakiin waa laga baarooyaa wiilka uu sadoga u yaho gabadhiisa qabana Jared Kushner asagana muxuu ahayto qaybihiisa waxaa laga baarooyaa dhaqaalaha xasuusta mar walba Jared Kushner waxaa lagu eedeeyaa inuu u isticmaalo madaxweynaha xiriirka uu la leeyahay siduu horumar ugu gaari lahaa xagga dhaqaale oo Chinese-ka guri waxaa jira 665 Fifth Avenue mala meesha Fifth Avenue oo ku taala New York guri ku yaala jiro oo day leeyihiin gurigaas kuwa badan Chinese ayaa kireystay hadda lacag waa la bixiyaa muxuu ahayto inta badan safaradiisa wadamada adduunyada markuu u kala gooshaayo muxuu ahayto dhaqaalihiisa sidoo kor ugu qaadi lahaa oo booskan uu isticmaali lahaa ayuu mar walba sameeyaa Jared Kushner marka dhaqaalihiisa ayuu muxuu ahayto ninkan baarahan muxuu ahayto gaarka oo loo xil saaray arrintan ayuu baarooyaa saddexdooda way jirtaa midda kale talaadadii la soo dhaafay waxa hadlay asagana muxuu Jeff Sessions waxa waaye ninka qareenka guud ee wadanka waa tii markii horeeto markii arrintan oo dhan ay soo baxaysay oo ninkii hore Michael Flynn la qayrinayay uu yiri anigu banaankan ka istaagaa sababtoo ah Jeff Sessions wuxuu qareenka koowaad wadanka waaye qareenka waxa hoos taga muxuu wasaaradda cadaaladda waxaan wax baarayo oo waxaan kale FBI-da ayadana gees waxay uga jirtaa wasaaradda cadaaladda marka si aan dadban oo kale waxaan oo dhan asigay hoos tagaan marka wuxuu yiri anigu recusaan ka sameeyna oo banaankan ka istaaga faraha lama gali doono ninka iga hooseeyay dadkaas ayaa arrimahaas taaban doona haddana waa tay soo baxday muxuu ahayto markii la qeyrinayo James Comey in muxuu ahayto madaxweynuhu asaga uu la hadlay uu saameyn ku lahaa taas ayay ahayd wixii laga wareysanay wax su'aal oo uu ka jawaabay haba yaraatee ma jiraan muxuu su'aal alla su'aashii muxuu ahayto la weydiiyo wuu iska soo gadiyay lawyer waa ninka waxa wareysanayana lawyeriin ama muxuu ahayto dad siyaasiyiin waaye muxuu ahayto wuuna is ilaalinoyaa sababtoo ah hadallada qaar hadduu yiraahdo arrintii way kululaatay dardar ayaa la geliyay wixii ka soo bixi doona ilaaha og marka ma uu rabo afkiisa inuu dambi uu muxuu ahayto isku gaarsiiyo waxaan kaloo rabaa inaan sheego muxuu qadar arrinteeda meesheedii ayay taagan tahay Soomaaliya iyo wadamo kale fara badan sidii bay muxuu Sacuudigu culays ay u saarooyaan taas wax iska soo bedelay ma jiraan qarax ayaa wuxuu ka dhacay makhaayad ku taala Muqdisho Soomaaliya shalayto oo dad aad u fara badan ay ku leedeen wixii anigu maahi muxuu ahayto dadka ka shaqeeya security-ga ama askari maahi laakiin mid arrin oo aad uga xumaaday ayaa arkay gabdho ayaa ku dhintay Allah u naxariisto muxuu ahayto gacan ka xaq daran ayaa dishay marka gabdhihii sawiradoodii ayaa online la soo geliyay qofkiisu ani saxaafadan ka shaqeeyaa waxyaabo waxaa jira qofka muxuu ahayto sharaftiisa iyo xurmadiisa iyo markuu nool yahay iyo markuu dhinto labadaba waa la ilaaliyaa markuu dhintana wayba ka sii xag jirtaa marka social media-dan ku arkay dad aad u fara badan la wadaagaya dadka la wareejinayay annaga Soomaaliya hadda markaad geliso muxuu ahayto magaca Soomaaliya Google haddaad geliso u fiirso mar walba waxaa soo baxaya hooyo dhimanaysa qof dhintay cunug rafaadsan cunug caloosha soo weyn tahay qof daacuun qaba qof shuban qaba haddana sanadihii la soo dhaafay awal waxaa qaadi jiray dad shisheeya asawirada dadka shisheeyaha wuxuu naga sheegi jiray laakiin hadda qarax yaraa dhacayo ama wax yaraa dhacayo muxuu ahayto dadaas kaamarooyin la kala ordaya markaasa waxaa la soo qaadaya meydkii jidkii oo kala daadaadsan wixii hadhowtii social media la gelinaa remember social media-da markii la geliyo waxyaabahaas Google ay galayaan marka waxay noqonayaan astaan lagu garto wadankii laba arrimoodba marka dhowr arrimoodba uma ay fiicna muxuu tasawirada wuu dhintay qofkii Allah u naxariisto in la wareejiyo la xurmeeydku waa in la xurmeeyo midda kale qofkii markuu dhintay dad baa dhalay qofka dhul ma dhalin dadkiisi dhaawac aad weyn ayay ku tahay ayadana waa la xurmeeyaa midda saddexaad wadankii
waxay u noqonaysaa astaan ayay u noqonaysaa hadda Soomaaliya Google aad gelinaysaa dharrag sawiradaas bari ka maalin ee rekorkay galayaan waxyaabahan online ku jirana waa digital fingerprints la dhahaa waa waxyaabaha wada ku jira ma baxaan ma tagaan meelna ma aadaan waligood meeshaas ay ku jirayaan marka intii wax fiican ay soo bixi lahayn dadkii hal xurmeeyo marka intiina aragtayna waa aragtay intiina aragna miina arkin marka muxuu ahayd lacala hada aragtaan oo kale tafadlan ha wareejinina muxuu ahayd Facebook no qofkiisaas u wareejinaya hadii loo sheego kale lama soo gelinayo dadkii dhintayna waxay u tahay muxuu ahayd lama xurmeynin meydkii muxuu ahayd dadkii noolaa lama xurmeyn anagii Soomaali ahaan sharafta mid kalena wax aad looga naxawaaye qof wax oo zaa'id looga naxawaayo oo muxuu ahayd aad u dhib badan qofkii dhiigla uu aad uga damqanayo waaye marka intaasaan rabay inaan warka ku daro waa mahadsantihiin daayto gabara ii soo dirtay muxuu ahayd maashaayir jamiila waa lagu waayay marka ramadaankii waxaasaan ku mashquulsanaa insha Allah hadda ka bacdi khamiis kasta waa idin soo gelinaa warka hadii aleedmo markay wax soo kordhaana waxaan soo sameynayaa live aan soo sameynaa waa idin soo gelinaa insha Allah jamiila idin soo gelinaysa habeen wanaagsan ramadaanka 10kiisa dambaa bilowday ilaahay kuwii ka faa'iideysta hanaga dhigo assalaamu calaykum bye